madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo wafdigii ballaanay uu hogaaminayay ee socdaalka shaqo ku joogay dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa qasrigiisa madaxtooyada ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka isutaga Imaaraadka Carabta ana ra'iisul wasaaraha dalkaasi isla markaana ah xaakimka Imaaradda Dubai Maxamed bin Rashid Al Maktoum. wafdiga warkacay madaxweynaha Soomaaliland ayaa heshiis dhinacyo badan taabanaya la saxday mas'uuliyiinta shirkadda Dubai oo shirkadda u qaabilsan isutaga Imaaraadka Carabta dhinaca dekadaha gaar ahaan waxa heshiiskaasi qalinka ugu kala duugay dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire iyo gudoomiyaha shirkadaasi Sultan Ahmed bin Sulaiman oo ka wakiila dawladda isutaga Imaaraadka Carabta. ujeedada heshiiskan ayaa ah dhismaha dayactirka iyo ballaadhinta dekadda caalamiga ee Berbera. waxaa kaloo heshiiskaasi la kala saxeexday ka mid ahaa dhismaha wadada loo yaqaan Berbera Corridor waa wadada ganacsi ee isku xidha Berbera iyo Itoobiya. waxaa kaloo ka mid ahaa heshiiska horumarin lagu samayn doono mashaariic ay ka mid ahaayeen beeraha, tamarta, korontada, dalxiiska iyo mid ka mid ah hoteelada casriga ee loo yaqaano 5 star oo laga hirgelin doono magaalada Berbera iyo guud ahaanba tababarada shaqaalaha iyo horumarintooda oo looga galeeyahay in lagu gaadho maamul wanaaga. heshiiskan ayaa lagu rajawan yahay inuu degdeg u fulo waxaana uu faa'iido ballaaran u leeyahay dalka iyo dadka Soomaaliland iyo gobolka ay ku taal Soomaaliland. Axmed Saki Daahir Xasan, telefishanka qaranka Soomaaliland.